بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي تقاليق ملك استاجوكتين كسو دوادة channel كيني حارونتا عنتدى عافيماتك وولاشن شكري آدم بوله ولا المعان حربا إنك هلا ما أنت infection كا كدعاء لين عدو مركا رجي دمر بكدعاء لكن إن عدو مركا يو بدني هاي سؤال بدل مركز اللي جسوا ويدينا أركي ما أنت بدن حسين infection كا وقبح كرا عنتدى وقبح قطع يا حرباين إن كفولا للمعان حرباين إني شيء إن infection كا عنتدى إن وحجرو حياة بدن أو كعاوي كرا أو نكهرتي كرا infection ka marka si ku ogaanaysa weeye waxa ku ogaanaysa qofka dumarka markay musqusha gasho waxa ogaanaysa kaadida ayaa dhibeysa ama balbal ay dareemaysa markaas hadee ogaato sas in tahay waxana fiican infection ka markuu yahay in la iska daaweeyo because waxyaalo badan oo dhibaato badan ay u keenaa dumar ahaan marmar wuxuu noqdaa caaqibada u weyn xitaa wadu ku weynaado wax weyn ku noqdo in dumarkaas hadhow ilaahay carruurtiisa bixiyo laakiin uurka xitaa uu ka hor imaado hadii la marka inta yarta waxa iskala tacaalan dhihi lahaa marka isku aragtid kaadina ku gubeyso iyo markasta hada dareemaysid maxaa la dhahaa cun aad dareemaysid waxyaalaha kale ku ogaan kartid waxa waay qaleel ayaa ka dareemaysa dhinaca hoose infection ayaa ku haayo waxa laga rabaa inaad dhakhtarka la xiriirtid dhakhtarkaaga hadii waxa la dhahay infection ka wax laga qaban waayo oo yani abu kugu weynaaday oo aska yareysatid allahay wuxuu dhinaca kelida ayuu xitaa وسي ويننا dhinaca kilida ayaa laga waxinaa uu maraa uu ku affect gareynaya hadhow dhiigaaga ayaa laga helaya hadana dhiigii ayuu sii galaya soo wax yar maaha waxaan ku dhihi lahaa isla tacaala marka intaas waa waxa lagu ogaado waaye marka in infection ku hayo marka aniga hadda waxaan u sii guud galaya dhinaca dietka oo ka caawinayo ama ka hortaga dhinaca cuntada aan ka rabaa inaad u sii galo waxa ugu horeeyo waxa weeye infection ka horta qofka bini'aadamka u fiican ana ku arkay dad badan oo dumar Soomaali ah dadka Soomaalideena maamooyinka ama gabdhaha badan way shaqeystaan dukaamada ay joogaan marka ma jecla maanta inay musqusha aadaan marka biyo badan hada cabtid nadiif ay jirkaaga noqonay infection kugu dhacana way adkaanaysaa dadka marka waxa arkay qofkii maadaama uu biyihii ka wahsanaay uu rabin maanta inuu musqul aado marka wuxuu dhahayaa igada ma rabo inaan musqul aado taas infection ku dhacay maanta dhan uu meel fadhiyo uu huur ku jiro ama dhar ay xirantahay masluul ay xirantahay infection kana uu ku imaada soo marka waxa la dhahaa even infection ka waxa la dhahay dhaqaatiirtu waxay dhahaan xitaa qofka maanta haduu wax xirto dhinaca sheegaya ama ha noqoto sulwaal ama ha noqoto xitaa kala dhahaa kastuumo ama dabagab waxa xirtid ina ku laaban maalin labaad sida isku daysid mid kale xiratid actually dhaqaatiir kale xidhaan xitaa waxa u fiican sulwaalaha balafka ah dhaxda laga xirto dhinac sii daysan kuwaas ayaa u fiican infection ka hawa because qofka soo galay dumarka la dhahaa qofka dumarka sidiisana ma u fiicna maanta dhan inay daboolnaato maanta dhan wax hoos ka xiran tahay because infection ka saas ku imaada isaga xitaa inay leersanaysa u fiican dhar marka guriga imaado iska bixinayso ay caadi ahaan karta u fiican soo marka hadda cuntooyinka waxaan sii guudgalaynaa oo marka qofka ka caawinayo infection ka waxa ugu horeeyo waxaan dhahay waa biyaha biyo badan maalintii in cabtid 8 glass ilaa 12 glass ama ka badan laga rabaa infection isku markaysid hadda ka hor hodayaan soo hadlay xitaa maxaa la dhahaa sinjibiisha way u fiican tahay shaax inaad ku darsatid iyo maxaa la dhahaa huruudi qoyneed ah hadda ka hor ka soo hadla iyadana u fiican infection ka aad ay ula dagaashay actually hadda xitaa dhaysid ka hortagaya infection ka hadda qoys shaaxa ku darsatid ama caanaha ku darsatid waliga infection is arkaysid qof nadiif ahaanaysa even qofka dumarka caadada nadiif u imaanay xanuun dabar jajab min dhicid jajab dhan isku ma arkaysid dadka isticmaalo waaye hadda isticmaalina hadda bilow infection ku ka dhamaanaya soo waxa waaye biyaha badan sanjibiisha huruuda qoyan hadii laha way u fiican tahay blueberries ka uu fiican yahay dadka badana vitamin C ku yar yahayna waxa la dhahay waba arkaan xitaa arkay vitamin C jirka ku yar yahay actually infection ka halis awtay wax kasta halis awtay ku dhacayo vitamin C ga because wuxuu leeyahay bacteria ayuu ka hortagaa oo la dagaalama soo vitamin C iyo dan liinta maxaa la dhahaa berry-ga babayga pineapple ka waxa soo dhan vitamin C meesha lagu soo koobi karo waxa jiro vitamin C bas aan ka hadlay video ah isagana waxa ila daawo videogaas vitamin C gana isku la tacaal ayaan dhihi lahaa vegetable ka wuu fiican yahay isagana
cunaan ku dhilaa bas biyo badan ku jiro waxa kale fiican maraqa ina cabtida uu ku fiican tahay ama chickenka oo suubka waa doorada chickenkeeda markii laga sameeyo iyadana way fiican tahay caabaan ku dhihi lahaa waxa kale fiican maraqa marka karsatid ina wax yar oo filfil ku darsatid waxa dhan jirka ay nadiifayaan oo nadiif ka dhigaan iyagana caabaan dhihi lahaa so waxaas iyo maxal yogurtka green yogurtka kuwa la dhahaa iyagana plainka way fiican yihiin because iyaga fermented way oo wal soo ferment gareeyay markaas bacteria fiicnad ay ku jiro laba bacteria ay dadka bini'aadamka leeyihiin mid dadka caawisa iyo mid dadka xanuun ku rida so waxaan dhihi yogurtkana walaalayaal macaan wuu fiican yahay yogurtka badso biyaha badso waxaan dhihi lahaa biyaha aad iyo aad jirkaaga nadiif ay ka dhigayaa maraqa caabaan ku dhihi lahaa maraq kulul caabaan ku dhihi walaalayaal macaan maraqa caabaan dhihi lahaa way fiican yahay waxaas dhan aan ka soo hadlay cuntooyinkaas waa cuntooyinka qofka markuu infectionkiisa ku arko nadiifinaa jirkiisa halkaas ayaan si guud u baxayaa inaan mahadsan sheegareeya si dadka uga faa'iideysto. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. meesha nagala socotiin waa xarunta cuntada caafimaadka.